Sheekada 17aad Axdigii Ilaahay la galay Daa'uud. Saa'uul wuxuu ahaa boqorkii koowaad ee Israa'iil. Wuxuu ahaa nin dheer oo qurux badan, sida ay dadku rabeen. Saa'uul wuxuu ahaa boqor fiican bilowgii xukunkiisa, laakiin markii dambe wuxuu noqday nin xun oo aan Ilaah caabudin. Kadibna Ilaah wuxuu doortay nin kale oo beddela Saa'uul. Ninka uu Ilaah doortay magaciisu waxa uu ahaa Daa'uud, wuxuuna ahaa nin xoolo raacata ku ah magaalada Baytulaxam. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo la jooga ari ayaa waxa uu dilay libaax iyo yey soo weerartay arigii uu la joogay. Daa'uud waxa uu ahaa nin afgaaban oo xaqa ku dhaqma oo Ilaah adeeca. Daa'uud sidoo kale wuxuu ahaa askari iyo hogaamiye fiican. Intii uu yaraa Daa'uud wuxuu la dagaalamay Goli'aad. Goli'aad wuxuu ahaa askari tababaran oo aad u xoog badan, dheerayna ilaa 3 mitir. Laakiin Ilaahay ayaa ka caawiyey Daa'uud inuu dilo Goli'aad oo uu Israa'iil badbaadiyo. Dadkiina aad ayay u jeclaadeen Daa'uud. Saa'uul ayaa waxa uu noqday xaasid ka masayray Daa'uud, iskuna dayay inuu dilo Daa'uud marar badan. Daa'uud wuu ka cararay oo wuxuu u baxsaday baadiyaha si uu uga dhuunto Saa'uul. Maalin Saa'uul iyo ciidankiisa iyagoo raadinaya Daa'uud ayaa Saa'uul wuxuu galay meel god ah uu Daa'uud isku qarinayay. Laakiin Saa'uul ma uusan arkaynin Daa'uud. Daa'uudna ma uusan dilin Saa'uul, laakiin maradiisii ayuu in yar ka jaray, wuxuuna tusay inuu Daa'uud rabin inuu dilo isaga oo uu noqdo boqor. Ugu dambayntiina Saa'uul waxaa lagu dilay dagaal. Sidaas ayuu Daa'uudna ku noqday boqorkii Israa'iil. Wuxuu noqday boqor fiican, dadkuna aad ayay u jeclaadeen. Ilaahay ayaa barakeeyey Daa'uud, wuuna guuleeyey. Daa'uud dagaallo fara badan ayuu galay, Ilaahayna wuu ku guulaysiiyey dagaalladaas. Daa'uud wuxuu boqor ahaa 40 sannadood, wuxuuna caasimadda Israa'iil ka dhigay Jeruusaleem. Intii uu ahaa boqor, Israa'iil waxay noqotay mid awood iyo dhaqaale leh. Daa'uud wuxuu rabay inuu dhiso macbuud Ilaahay lagu caabudo oo qof kasta ku cibaadaysto kuna alla baryaan. 400 oo sano muddo ku dhow, dadku waxay Ilaah ku caabudayeen oo ay allabari ku bixinayeen teendhada kulanka ee Muuse uu dhisay. Ilaah wuxuu Daa'uud u soo diray nebi Naataan si uu ugu sheego fariintiisa, wuxuuna ku yidhi, Daa'uudow waxaa tahay nin dagaal. Macbuudkan aniga iima dhisaysid, waxaa dhisi doona wiilkaaga, laakiin aad ayaan kuu barakayn doonaa. Qof ka mid ah faracaaga ayaa noqon doona boqorka dadkayga weligeed. Farcanka Daa'uud ee weligiis ahaan doona boqorka waa Masiixa. Masiixu wuxuu noqon doonaa mid dadka adduunka ka badbaadiya dembigooda. Markuu Daa'uud maqlay fariintaas, isla markiiba waxa uu u mahadnaqay Ilaahay, aadna wuu u ammaanay. Daa'uud ma uusan garanaynin xilliga uu Ilaah samayn doono sidaas. Israa'iiliyiintuna waxay sugayeen Masiixa muddo dheer, ku dhowaad 1000 sano. Daa'uud sannado badan ayuu hogaamiye cadaalad iyo xaq ku dhaqma ahaa, Ilaahayna wuu barakeeyey isaga. Si kastaba ha ahaatee, ugu dambayntii wuu dambaabay. Maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu arkay gabar aad u qurux badan oo qubaysanaysa. Magaceedu wuxuu ahaa Baatshiba. Halkuu ka sii jeesan lahaa, Daa'uud waxa uu u diray qof u keena iyada, wuuna la galmooday iyadii. Markii dambena gurigeedii ayuu u diray. Muddo gaaban gudaheed, Baatshiba waxay fariin u soo dirtay Daa'uud oo ay ugu sheegayso inay uur u qaaday isaga. Baatshiba ninkeeda waxa uu ka mid ahaa askarta Daa'uud kuwooda ugu fiican. Daa'uud waxa uu ninkeedii Uraaya ugu yeeray
inuu dagaalka ka soo baxo oo uu xaaskiisa u yimaado. laakiin Uraaya wuu diiday inuu dagaalka ka soo baxo keligiis, waayo askarta kale oo dhan way dagaalamayeen. kadib Daa'uud waxa uu ku amray ninkii ciidanka hogaaminayay inuu Uraaya u diro meesha cadowgu ku xooggan yahay si Uraaya loo dilo. markii Uraaya la dilay, Daa'uud waxa uu guursaday Baatshiba, kadibna waxay u dhashay wiil. laakiin Ilaah raalli kama uusan ahayn waxa uu Daa'uud sameeyey. kadibna waxa uu soo diray nebi Naatan si uu dembigii uu galay ugu sheego. Daa'uud aad ayuu uga xumaaday dembiga uu galay, Ilaahna waxa uu weydiistay dembi dhaaf. Ilaahna wuu cafiyey. intii noloshiisii ka dhinnayd, Daa'uud Ilaahay ayuu aaminay oo adeecay, xitaa marka uu wakhtigu aad u adag yahay. dembigii uu galay darteed waxaa dhintay wiilkii uu Daa'uud dhalay. dagaalna waxa uu dhex maray Daa'uud reerkiisii intii noloshiisii ka harsanayd. awooddii Daa'uudna way yaraatay. inkastoo Daa'uud uu khiyaanay Ilaahay, laakiin Ilaahay ballantii uu u qaaday Daa'uud kama uusan bixin. mar kale, Baatshiba waxay dhashay wiil, waxayna u bixiyeen Sulaymaan.